سبحانه وتعالى مركا aad baan ugu faraxsanahay inaan maaragtay sidaas u faraxsanaano sida uu sheegay de markii hore heesaha waan isku bacsan jirnay laakiin iminka khayrka baan u kala horeynaynaa ma sha Allah waan inaad u wanaagsan Axmed Khayr soo dhawaada walaalaha qalbiga ee ku xiran ee YouTube-ka Bulshaawi Show waxaan isoo gudbinaynaa muuqaalkan ku saabsan Axmed Khayr oo tagay magaalada Hargeysa isla markaana waxa soo dhaweeyay Maxamed Mubaarak Saciid oo isla markaana sidoo kale hadda fan ka baxay walow Axmed Khayr oo horey fanka uga baxay fanaan ahaayeen labadoodan isla markaana laba fanaan hore ahayn hadda balse waxay isku garabsanayaan sidii ay ku soo gudbi lahaayeen faafinta diinta isla markaana waxay sheegeen in ay qorsheynayaan inay gobollo badan oo Soomaaliya kamid labadooda wada socda ay tagaan halkaasna ay ku faafiyaan khayrka halka ay ka faafin jireen heesaha iyo soo kale waxaalahaas Maxamed Mubaarak iyo soo kale Axmed Khayrba waxa soo gudbiyay muuqaalkan isla markaana iskala xuquuqdiisa Badri Koosar Maxamuud isla markaana telefishinka sahan magaalada Hargeysa soo dhawaada asxaabta qaaliga magaalada Hargeysa waxa soo gaadhay Axmed Cabdikariin Maxamed Axmed Khayr horana uu ahaa fanaan oo la oran jiray Axmed Beef waxa soo dhaweeyay saaxiibkiisii dhinaca fanka ay wada macasalaameeyeen Maxamed Mubaarak Axmed Khayr oo ugu horeyn madaarka cigaal ku hadlay waxa uu yiri bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu ala nabiyil amiin muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmaciin ama bacdu walaalayaal aad baan ugu faraxsanahay inaan magaalada Hargeysa aad igu soo dhaweysaan runtii saaxiibkay qaali ah walaalkay Maxamed Mubaarak aad baan maaragtay runtii u qanacsanahay oo u kalsoonahay gagada diyaaradaha ee magaalada Cigaal International ayuu ugu soo dhaweeyay walaalkay isagoo iyo asxaab kale to runtii insha Allah ta'ala waa kala war qaadan doonaa muxaadarooyinka iyo xaaladahaas insha Allah isku wareysan doonaa haddii Allah awood leh ogolaado dankiisa Maxamed Mubaarak ayaa saaxiibkii ku soo dhaweeyay Hargeysa waa sheekhi weynaa Axmed Khayr markii horena uu taqaaneen Axmed Beef waa soo dhaweynaya waa saaxiibkay saaka safar buu inoogu yimi Hargeysa soo dhawow saaxiib wuxuu sidaa khayrkana waan isla garabsanaynaa maxaadirooyinkii wanaagii iminka group baanu nahay ma sha Allah أحمد برلباد يوم مرصدحات بكسود وهرجيسة ما شاء الله شيخ وأخو كسود ويني أدبض ما هتنتهي welcome إن هروحة صاحب قواعدين إن عفنها هتنا ويدي كان دلعين عبادة جدا محاذروي كيارتا صاحب قوا والله ما دام كاس وقتان درع عن كي المدينة بعد نتاس يدين لهذا درين آد ونكسن بينول هذا حي كنتي إلا يسكر بصدا خيرك وشرعي ديني ويا وإلهي سبحانه وتعالى جديي رسولك صلى الله عليه وسلم ونو جديي مركا إنه خير كيسوق قرب سنه وحي حماننا أنه إن شاء الله الله دقالنا وسدي ودريقي رسولك صلى الله عليه وسلم مركا وأنه فرح سنة هاي إنه أول حولك لا يسوق قرب سنجري ما أنتنا أنه يسوق قرب سنة إنه خيرك وطلابة آد يؤاد أفعن إلهينا سبحانه وتعالى ومحدد إسكالي هاي ربي النسلسيي ووحول بقى عنتي سكجرا سبحانه وتعالى مركا آد بانو فرح سنة هاي إنان ماركتي سداس أفرح سنانو سدا أو شيء ده مركو هره هسا هو نسكو بعثين ترني لكن إمك خيرك بان أكله هريننا ما شاء الله وننا دو ونكسن أحمد خير إيجانا هرية ده فنك هره وقبحي marka khayrkaasaan isla garabsanaynaa meel kasto Soomaali joogtana waa la tageynaa maxaadirada qorshaha iyaga imkaan baaraan degeynaa oo barida u dhigeynaa qoraal baan ku sameynaynaa oo inala joogay Axmed Beef dhul badan waan u raacaynaa oo ku kulmaya ma sha Allah khayrka uu inoo sidana waynu ka qaadanaynaa ma sha Allah mar labaad iyo mar saddexaad ba ku soo dhawo Hargeysa شيخ مقداعبات هاي اللي أنا بربرت بانه بدري كوسار محمود تلفيشة كصها أحمد غيري سوى كلا محمد مبارك وحي كجرين إسلام كان كمل هايين فنانينتي وفعوينا صومري فنك الصوماليات ولو وسي مقعوينا
maxamed mubaarig islamarkaana axmed kheyr uu wixii ka dambeeyey 2000 iyo sidoo kale 14 uu heysiisa ku ekaayeen balse hadda wixii ka dambeeyey wuxuu bilaabay in uu kheyrka faafiyo balse maxamed سعيد ayaa asna sidoo kale wuxuu heysiisa isla markaana uu gabi ahaan fanka ka baxay sanadkan aan ku jirnay 2020 isla markaana wuxuu sheegay inuu fanka gabi ahaan ka baxay sida hadda idin muuqataba insha Allah wuxuu sheegay in ay wax badan qorsheynayaan isla markaana ay gobolada Soomaaliya dhamaantood ay ku tagayaan Soomaaliya sidoo kale faafinta diinta asxaabta qaali waxaan ka codsanaynaa asxaabta ku xiran YouTube-ka Bulshaawi Show inay muuqaalkan like saartaan sidoo kale aad sii share gareysaan asxaabtan kale sii gaarsiisaan si aad nooga caawisaan in muuqaalo kale sidoo kale uu qiimo badan aan soo gudbino si share gare adiga walaalka YouTube-ka subscribe ku saaran yahay walaal kale waxa jira oo subscribe u saarneen oo adiga sidoo kale u wanaagsan balse aan channel-ka hore u arkinin samarkaana oo soo gaaray muuqaalka balse adiga sii gaarsi waa mahadsantiin muuqaaladan iyo sidoo kale muuqaalo kale xiiso badan ayaan soo gudbinaa hadii ahaayeen kuwa madadaalo ah kuwa oo dadka anfacaya iyo sidoo kale kuwa kale oo ay sidoo kale shactar ku saabsan waa anigoo ah Maxamed Khaliif isla markaana idin kala soo hadlay YouTube-ka Bulshaawi Show isla markaana waa saasi waxaan ka tagayaa kulan dambe oo wacan oo wanaagsan